dad dhibaataysanaa nahay guryahooda laga gubay awlaadooda waxooda meesha ku dhamaadaan nahnay waxaan haysano ma laha meeshaan iskaga rafaadsannahay waxaan caalamkan ka codsanaynaa labada ruux oo maatada isku dhamaysay xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe in caalamka ay naga qabtaan aan taas iidan ka codsanaynaa anaga ilmahayna waa dhamaadeen awlaadayna waa burburtay waxaan haysano ma laha midaas iidan ka codsanaynaa caalamka taasaan ka codsanaynaa anaga runtii maamadan ay u jeedaan waa maamo masaakiina waxay ka soo qaxday magaalada balad xaawi shali ilaa xalli dhaxda ay ku soo jirtay waxay dhibaato weyn la sheeganaysaa xitaa in awoodi weysay kubaheeda inay soo qaadato waxayna sidoo kale lagu warantay caqabadaha xoogan ee ka jira dagaalkaasi uu sababay maasan tahay maxaan ku raadayay waxaan qaxaynaa 9 bari muddo 9 bari aan qaxaynay aniga hadda qaas ahaan maxaan ku raacay ciyaal baan maqaayad u shidan jiray subaxii waan kala jiray 4 saac weynaan u imaan jiray hadda carruurta waxba kama hayo 7 carruur aan dhalay 7 carruurta ahayd 4 baan hadda meel ku sheegi karaa oo bayahaas oo nagu dhimanayso meeshaana xoogaa gargaar laga fidiyaan maqlay saas awgeed baan ilbal carruurtii meesha sii jooga galabtay taan in maan haduu ilaahay yiraahday ana laftagayga hadda xaaladayda ilaahay baa og marka dadkii wax duurka galo wax madfici ku dhamaado wax xaaladooda ilaahay og yahay wax qaar ba guriga ku ajarto ma iska yihiin magaalada food waan gelin weynay marka biyo ma haysano maxaan ku raac cunto ma haysano weel ma haysano wax lagu seexdo lama haysto dad baa inkay kabalo hadda xaarkay gabdha kabalo oo lahaa maxaan ku raay kaba aan ku socono bas yaana siiyo dhibaatada iska taala cunna iska daay meel aan fariisanaa balaan cunna ma arag meel aan fariisanaa ma arag xoogaa dadkan baad noo tabarxoon soo dhaweeyo hadda soo dhaweyn meeshaan iskuulkan baan ka helnay iyo dadkan magaalada Mandheera reer Busley dadkan baad soo dhaweyn caawiye khayr Allah siiyo idana ma soo gaarin dadka oo hadee iyagu ba tabar ma anagoo kale oo qax bayna nagu dhaamin ma ogiye kiilooyin ay dadku karsan say u kala dareeyeen waa loo keena joognaa wadankan Kenya tuusi baan joognaa waxa weeye aniga Xaybo Xuseen baa la yiraahdaa colaad baan ka soo cararnay dib baan ka soo cararnay reer balad xaawaan ahayn waa soo qaxnay hadda weynaha waxaan ka codsanaynaa ilaa dawladda Kenya hadda dhul nabdoon baan joognaa waxaan ka codsanaynaa gargaar in nagala soo gaaro